bilaabo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داود يال ملك استوى دنيا كجسوجن تهين بكسر دوادا برنامج كاني وحقبض برنامج كوحقبض وقد أعلم أنه قبرت إن عايزين كسر قد بينا شخصيات كأما نكوع السنة شخصيات كأنسلان هاي waxay mudan yihiin bulshada Soomaaliyeed in lagu dhiirigeliyo barnaamijka waxqabad oo inta badan qayb ka ah barnaamijyada ay soo saarto hay'adda waxqabad oo inta badan qorshaheedu yahay inay bulshada Soomaaliyeed kuwooda waxyaalaha la taaban kara bulshada u qabtay inay dhiirigeliso isla mar ahaantaana u soo gudbiso ummadda Soomaaliyeed shakhsiyaadkaas iyada oo ay muhiimad gaar ah leedahay in qof kasta bulshada booska uu kaga sugan yahay la tixgeliyo isla mar ahaantaana waxa uu bulshada u qabtay la soo bandhigo halka aan ku dhiirigelino inta kalena inay ka qayb noqdaan iyaguna qorshahaas oo kale ay la yimaadaan wax bulshada Soomaaliyeed horumar u horseedi kara haddaba barnaamijkeenan waxaa inoo ku marti ah maanta Sheekh Axmed Jawhar Bilaal oo isagu ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo sidoo kale Hibo Cumar oo inta badan aad ku aragteen inay bulshada Soomaaliyeed u soo gudbiyaan waxyaalaha runtii faa'iido badan u leh ka qayb qaata barnaamijyada horumarinta bulshada ah haday noqon lahayd dhinaca family-ga iyo sida la isu fahansiin lahaa qoysaska haday noqon lahayd lamaanayaasha isqaba haday noqon lahayd dhalinyarada haday noqon lahayd ummadda Soomaaliyeed oo kale isfahankooda barnaamijyo noocaas oo kale aaladaha internetka iyo meelo badan oo TV-yada kamid ah aad kala socoteen ayaanu maanta soo booqanay waxaan isku dayeynaa bal inaanu bal wax ka ogaano shaqada ay qabtaan iyadoo ay runtii muhiimad gaar ah leedahay ama ujeedada aan maanta halkan ugu nimid ay tahay berihii la soo dhaafay oo runtii barnaamij aada cajiib u ah aan horay ummadda Soomaaliyeed aan dhexdooda horay loogu arag oo qorshihiisu uu ahaa wax loogu yeeray love challenge ama in qofku uu isagu qofka uu jecel yahay ama xaaskiisa oo kale in ay hadiyad u keeno kabacdi hadiyad markuu u keenana hadiyadii uu qof kale oo ka maqan uu dabcan iyaga inoo sharixi doono qorshaha iyo sida ugu talagaleen hadiyadii qofka markuu u keeno sidii aad ka daawanaysaan shaashadaba hadda ka arkaysaan Axmed wuxuu hadiyad soo qaaday xaaskiisa uu keenay kabacdina saaxiibadiis wuxuu u diray challenge oo ah inay iyaguna sidaas oo kale sameeyaan marka arintaasi waxay noqotay wixii ugu hadal haynta badnaa asbuuciyadii la soo dhaafay aaladaha social media-da loo yaqaano haday tahay Facebook Twitter-ka iyo sidoo kale website-yada Soomaalidu aad ka u akhrisataba marka waxaan isku dayeynaa bal inaynu wax ka ogaano ujeedada ku kaliftay barnaamijkaas inay sameeyaan qorshaha ka dambeeya meesha higsanayaan iyo sida isleeyihiin ummadda Soomaaliyeed way ku anfici kartaa marka hore waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijkan waxqabad aad baad idinka mahad celinaya waqtigeena inaad runtii wax naga siisaan بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خير ولك عبد الرزاق أهلا بمحسنتهاي soo dhaweynta aad nagu soo dhaweysay qoyskayga barnaamijkaaga waxqabad runtii aad baanan u jecelahay dabcan in aan la wadaagno walaalahayga caalamka meel kastay joogaan barnaamijka aad hadda ka dhawaajisay ee ah love challenge sida uu yahay dabcan hibo oo xaaskayga ah iyo aniga ayaa isla sameeyey marka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ولا الآد بعد ما هتصمتها جزاك الله خيرا جزيلا سودوينتا أن سودويسي يوريسيقا أدنا وريسينيسي إن شاء الله runtii waan dhownahay aniyo ninkayguba waan dhownahay oo diyaar baan unahay biidni illaahi alkariim bal wixii aan u faa'iideyn karno walaalihiina Soomaaliyeed insha Allah jazakallahu khayr haddaan ku hormaro Sheekh Axmed Jawhar barnaamijkan love challenge waa barnaamij runtii ku cusub bulshada kole anu horey uma arkin صح waa barnaamij cusub oo horey loo arkin dabcan wax kastana markay cusub yihiin dee waxay leeyihiin soo jiidashada gaarka marka maxay tahay horta maxay ku dhaliyay fikirkaas inaad intaad hadiyad soo gadaan aad adigu soo gadid hadiyad xaaskaaga u keentid video soo duubtid internetka soo gelisid oo intaasoo milyan oo qof ku daawanayaan maxay tahay ujeedada maxaa kugu dhaliyay waa su-aal runtii bismillahi raxmaan raxiim waa su-aal fiican marka hore
aniga waxaan aada u jeclahay in aan faafiyo hore u mariyana isfahamka labada qof iyo waxa isku soo dhaweynaya. waxa isku soo dhaweynayana waxaa ka mid ah in uu qofku qofka kale wanaagiisa iyo quruxdiisa arko, intiisi iyo wax yare maaragtay u dhibsanayana uunan u saarin yacnaa tarkiiska. haddaba waxaan ku dhex jirnaa annagu marka faamiliyo, dhalinyaro, bulshadii soomaaliyeed baan ku dhex jirnaa, tababar baan samaynaa, mayane la jaqriyo muxaadaraad baan jeedinaa, telefoonaan dad la hadalaa, dad baana soo waraysta. waad ka warqabtay barnaamijkii aan ku qabanay magaalada Birmingham ahaa maxaan ku dhahday sirta jacaylka. dad badan oo kasoo qayb galay runtii waxay aada u xiiseynayeen inay ogaadaan qaybtii ay hiba ka sheekeynaysay ahaa kala duwanaanshaha ragga iyo dumarka differenceska. waxaa marka haddaan usoo laabmo maxaa igu kalifay yacna ama maxaan uga dan lahaa, laba arrimood baa la odhan karaa. waa marka hore barkinta ay ku qornayd I love my wife baan la kulmay oon helay. deeta waxaa igu soo dhacay in aan la wadaago kow qofkii aan jeclaa oo hadiyad ahaan aan uga dhigo si ay usoo jiidato qalbigeedii, isla markaana dadkii kale ee maaragtay walaalaha caalamka meeshay doonaan ha joogaan iyagana dareen u geliso oo maaragtay iyaga laftigoodu ay qasar ma aha inay yana fagaaro soo dhigaan, laakiin inay sameeyaan yani. marka waxay ahayd aniga dhiirigelin qoysaska in ay isku hadiyeeyaan, hadiyadda isa siiyaan. lidalik baan xadiiska usoo qaatay aan leeyahay nabiga alayh salatu salaam wuxuu yihi tahaadu taxaabu, isku hadiyeeya mid jeclaanaysaan, jacaylkiina ziyaadeeya. ujeedada ka dambeysa waxa weeye in familiska ama qoysaska dhexdooda laga abuuro in ay inta badan dad isku xiran oo hadiyada isu keeno, isku farxo oo noqdaan, kalgacaylku inuu sii ziyaado, sii adkaado. aad baa umahadsan tahay. waxaan u gudbayaa hibo dabcan sanad ka aragnay aaladda internetka oo hadiyadan uu odagaaga ku keenay ama xaajigaaga Axmed Jawhar. runtii dad badani aad ba ula yaabay, macnaha dad baa waxay yidhaahdeen ma dhici karto nin Soomaali ah, maadaama la yidhaahdo Soomaalidu inta badan saas oo kale ma sameeyaan. dad baa marka waxay aamineen dhalinyarada ah, maxaa dad baa arkaya comment ka bixinayo le maxaa loo yiri dee Soomaalidu, ragga Soomaalidu dad jacaylka iyo familiska iyo nolosha ku dhex jira fahansan ma aha, maxaa loo yiri romantic ma aha. marka su-aashaasaan ku weydiinaya iyo dabcan faa'iidada is leedahay waxa laga faa'iidi karo maxay tahay. bismillahi raxmaani raxiim, alxamdulilah. runtii waad mahadsantahay walaalkiis. waxa aan samaynay oo runtii aan soo gelinay facebooka wuxuu ahaa wax dadka aan wax ku barayno oo waxaan ku tusayno. markaad qofka wax baraysid eed wax tusaysidna dee aaladda markaa jirta casriga aad nooshahay, aaladaha jira unbaad isticmaali siduu warkaagu u faafo uu dadkii u gaadho. laakiin dadkana waxaa ka imanaya warbaa iyagana ka imaanaya, markay arkaan sibay usoo jawaabi doonaan. marka noocyo badan baa jira. hadiyaddu runtii qiimahay leeda waan ka hadli doonaa, laakiin meeshaas barnaamijkaas markii la daawaday dad baa waxay dhaheen hadiyadda markii lagu siiyey runtii waxaan sugaynay inaa meesha dahab lagu siiyo, wax qaaliya ay nooga soo baxaan. maxay ahayd barkintu? bismillaahi, wayba yaabeen. dadka qaarkoodna waxay dhaheen maxay ahayday ilaahu maa 2 kabood oo dacasa lay siiyo oo I love you ay ku qoranta. nacam qiimaha ay leedahay maaha shayga maaha, waxa weyn waa qalbiga, waa niyadda, waa doonista, waa muujinta, waa ficilka. qofkan inuu dareen ku geliyo rabaa uu wax ku tuso, ma garatay? marka waxa ugu wanaagsan oo dareenkaaga aad ku cabiri kartidna waa amba hadal wanaagsan amba hadiyad fiican. wax kaloo intaa ka badan ood qofkii u samayn kartid way yar tahay. marka hadiyaddu xadiisku walaalkeena xasuusinaya waxay isku hadiyeen nabigeenu yiri waad isjeclaanaysaane.
meeshaas maxaa ku kulmay hadiyadii iyo jacaylkii labadaasun baanu ka hadalnay anagu wax kale kamaynaan hadal dadka qaarkood waxaa dhici karta inay waxyaalo qaarkood ay kala soo baxaan oo faa'iidooyin dheeraad ah laakiin muhiimadda ugu weyn waxay ahayd hadiyadna in laga hadlo oo laysku hadiyeeyo jacaylna in laga hadlo marka jacaylka laftigiisu uu ballaaran yahay ninka iyo naagta isqaba un maaha waanan sii gali doonaa biidnillahi alkariim oo uu ballaaran yahay waan sii falaqayn doonaa laakiin hadiyadda ibnu taymiya markuu ka hadlayay wuxuu dhahay hadiyad markaad qof u geynaysa waad qiimeynaysaa waad saro qaadaysaa qof aada jeceshahay in aada wanaag gashatid na hadiyad waad siisaa qof aada jeceshahay inaad qiimaha iyo meeshuu kaa taaganya aada u muujisidna hadiyad baad siisaa marka hadyaduhu wax badan meelo badan bay buuxinayaan walaal qisad yar baan rabaa inaan ku darsado oo hadiyaddu faa'iidada ay leedahay waxaa nagu dhacday aniga walaalkeen axmed reer jamaican ah baa deris nala ahaa reerkii xoogaa dhib baan kala mudanay aad bay noo dhibeen booliis bay noogu yeereen wayna rafaadiyeen maxaa dhacay reero kaloo badan oo derisoon jamaica-ana way noogu soo biireen marka waxaan noqonay annakii oo soomaali ah iyo reerihii deriskayaga oo dhinac naga noqdoo na dhibay markaa gabadhii dhibaatada bilowday baa wuxuu ilaahay qadaray inuu ilaahay ilmo siiyo ay umusho markaasuu axmed jawhar oo fikradda la yimid ilaa khayr siiyaba wuxuu dhahay hiboy han ka wanaagsanaanoon hadiyad han u geyno gabadhii ilmay dhasheen markaa waan baxnay reerkii baan u garaacnay annagoo hadiyad u wadnaa gabadhii way yaabtay way fajacday wayna soo fariisiis wayna soo dhaways wayba yaabtay way iskala garan weyday ma dadkii aada shalay sidan u gashay baa maanta hadiyad kuu wada annagu xataa laftigayaga maynaan filanaynin saas hadba ilbaabkan iga soo celisaabaan wax kastaan filanaynin kadib wayna soo fariisiisay si fiican bay noo qaabishay meesha ugu muhiimsan waxay noqotay inay su-aal na weydiiso gabadhii jamaicaanta ahayd oo gaal ah marka waxayna tidhi inaan jamaicaano muslina jiro mogta markaa tani gaal bay ahayd waxayna tidhi islaamku iyo diintiinu ma idiin ogoshahay oo ma idiin fasaxaysaa inaad dad gaalo ah aada hadiyad siisaan runtii calooshaana xanuunsatay aniga walaalo axmed calooshaana xanuunsatay waxay noo xanuunsatay waxa weeyaan maxaa ku dhex jira hadalkeyga waxaa ku dhex jira inay fahansan tahay inuu qof muslina qof gaalo wax siin karin inaaba shaqo laysku yeelan karin xataa inay naga baqayso macnaha dhibaatadii markii hore waxaa keenayba inay ahayd inay aaminsanayd inay dad cadowa la soo degay mushkilad iyo lafteedu ay difaaca ku jirtay cadowgii ay noo arkaysay baa burburay yaa caraday noo qabtay baa baaba'day wanaag baa meesha yimiday soo dhaweyn baa timiday isla markiiba waxay gudagashay inay reerihii kaloo dhan la hadasho ay tidhaahdo reerkaas iska nabadgeliya meel walbay maraysa gabadhaasi berito haddaan meel isku aragno way noo joogsanaysaa hadiyadaas aada u geyseen waxay sababtay in idinkii reerka idin xanaaqsanaa iyo dhammaan dadkii dariska idinla ahaaba wanaag ayna dhex dhigto ay wanaag idin dhex dhigto aad baa mahadsalka kugu soo noqon doonaa sheekh axmed jawhar dabcan hiba waxay ka sheekaysay runtii wax aada u qiiro leh oo mucjizo ah macnaha in qof kolley wax lagu dhiiraday wey waxaan rabaa inaan ku weydiiyo barnaamijkan waxaad geliseen internetka dabcan fikir baad ka lahaydeen sidaa sheegtay maxaa idiin soo noqday maxaa ilaa hadda aragteen baa isleeda waa su-aalaan u bahna inaad weydiiso runtii xaqiiqatan yacna saddexda cishaba xoog baan ula socday feedbacka ka imaanayay walaalaha runtii walaaluhu caalamkay ku faafsan yihiin shanta qaaradood lagu nool yahay ayay kala joogaan feedback aada u tira badan baa ka yimid oo ilaa 50 kun gaadhay yacna weli taariikhdayda aniga noloshayda waxaan arkay dad ilaa iyo 40 kun kor u dhaafay oo 50 kun bagdhowda website-ya qaarkood way qaateen shalay walaal baa Thailand laga soo hadlayay mid kale Malaysia laga soo hadlayay walaalo aada u qiimo badan baan ku bartay yani runtii oo iigu soo ziyaaday Facebooka ii soo wada galay halkaa baan ka salaamayaa dhammaantood say u idiliyiin runtii waxa yacna cajiib oo aniga qalbigayga taabtay walaalahan uga mahadnaqaya waxa weeyaan ama aan uga mahad celinaya aan leeyahay duco waa u qoray runtii
macnaha ducay ku ducaynayeen dadkaas markay daawadeen ducay noo ducaynayeen oo ducadaasi dhowr bay isugu jirta in ilaahay jacaylkayga noo daa'imiyo ilmo barakaysan noo siyaadiyo tusaale nooga dhiga ummadda eeg waa cajiib waxaa kaloo ku jira message ah oo walalu soo dirayeen wax dadkeennu ka xishoodaan oo kuu bannaan ayaadna tusteen dadkii baa waxaad u horkacdeen wax fiican waxaa ku hoos jira markaa laftigeeda oo in la sheego ay tahay dadka qaarkood yani la jarada aan bixinay ku jirtaa fiiri waxaa laga kala yimid gobollo kala duwan gobollo kala duwan qaab kala duwan baa loogu kala dhaqmaa ninba aragti buu ka leeyahay arrintan waxaa jiray dhowr comment oo walaalaha qaarkood ay sheegeen in ay ku fiicnaan lahayd private inay ahaato waa garad sooma yani wax ku gaar ah inaadan bulshada la wadaagin qaar kale oo cod aan rabo inaan ka digo runtii oon yani u adeegsado sidaan oo kale yaa jiro oo ka walwalaya dhalinyarada yani haddiiba dadkii waaweynaay sidan ay samaynayaan dhalinyaradii amay badda ku dhacaan oo yacna maxaa loolan jiray maxay u tookeen shar u tookeen miyahe khayr wax kuma yeeleen shar u tookeedii haddii ay shar ku dhacaan ilmahaas so yani consequence ka yimid arrintan waa wax dhici kara oo dee ma odhanayo ma dhici karto mugta dadka anu kuma wada jiro lakiin anaga ujeedadii saas maahayn haddaan u sheegaynaa mugta walaalahan la wadaagaynaa in wax qurux badan baan ka rabnaa jacayl baan ka rabnaa waxaan ka rabnaa wanaag marka waxaa nooga soo laabmay dadka su-aasha haddaan kusoo noqdo walaalaha waxaa nooga soo laabmay runtii farxad wanaag duco iyo arrin ilbaxnimo ah yani inay aada u soo dhaweeyeen aniga ma filaynin intaasoo qof konton ku dhawaad inay kufar qaarkood qaataan oo goolkooda internetka saddex beri gudahood oo meel walba websaydyada xataa meel kasta ay tagto waa gartay waxaa ku dhex jirtay dabcan anagoo hibana usoo socda waxaa sheegtay 3 beri gudahood in dad 50 ku dhow ay daawadeen intaasoo qofna kula soo xiriireen dabcan hiba waxay ka sheekaysay in waxyaalaha ay iyadu soo aragtay oo intaad family israacdeen saas oo kale dhib colaad ka dhex jirto waxaan ognahay dadka Soomaalida ah in ay isaga dhex jirto colaado iyo mushkilado iyo dhibaatooyin iyo dariska dagaalsan iyo mushkilada qorshihiina aad idinku gurigiina ku bilowdeen ma isleedihiin haddii ummadda Soomaaliyeed oo dhan qaadato oo dariska ku dhagan hadiyad u keeno oo qofku ninku saaxiibkiisa uu is yaqaanaan hadiyad u keeno oo hadduu xitaa u xanaaqsan tahay xilliga maxay soo kordhin kartaa baa isleedi waxaan rajaynayaa kolley hibana inay iga dambeyso hadduu la yidhaahdo anigu runtii waxaan u arkaa arrintan arrin dhalin karta soo celin karta galgacayladii ummadda dhex taalla ee aada moodo sidaad haddaba adiguba sheegtay yacna hadday qabyaalo tahay iyo haddii ay burbur iyo tahay dagaal iyo haddii ay tahay sokeeye ee ay faalikada ka saartay waxaan filayaa in ay soo celin karto weliba waxaan u diri lahaa maxaan ku ihahda dadka madaxda ah dadka culummada ah dadka ummadda horseedka u ah in ay bilaabaan yani oo taxadigan ay ka qayb galaan oo hadiyaday isku gudbiyaan oo maxaan ku ihahda guri kastaba guriga kale sidaad tilmaantay mayane dadka dhibtu ay dhex martay waxaad ila taqaanaa labada qof nebigu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam hadday isku xanaaqaan wax isku qabtaan 3 cisho gudaheed 3 cisho ka badan ma kala maqnaan karaan waa ilaa camalkoodiiba maxaan ku dhahday aanan samada la geynaynin ilaahay odhanaya maaragtay suga labadan waxbaa ka dhexeeye si marka taasi ay u baxdo xadiisku wuxuu markuu sii waday nebigu wuxuu leeyahay qofka bilaaba hadalka iyo salaanta bilaaba ayaa qofka kale ka khayr badan marka waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto inaad aado walaalaha khayriyada qaado adigu oo dadku ha iscafiyeen oo hadiyadan ha uga faa'iidaystaan hadda arrintan yacna waan ka niqaashnay aniga iyo hibo arrintan jaarka yani waxaa jira hadday walaaluhu heli karaan kitaab la yidhaahdo kitaab uu qoray ibnu qudaama oo qofka muslimka ah qaabku u noolaan lahaa iyo maxaan ku dhahday
siduu ahaan lahaa ka muslim ahaan uu kaga sheekeynayo goormuu qoray yacna quruun ka hor buu qoray waqtiguu noolaa ibnu qudaama ma fahanti 8 qarni ka badan ayaa laga soo wareegay markaasu wuxuu leeyahay jaarkaaga waa inaad mas-uul ka ahaato xataa gaala hadday yihiin oo uu ka maqan yahay ninkii familigan reerka mas-uulka ahaa halkeen inagu maanta ka taagana sababta waxay soo kordhinaysaa hibaan usoo noqonaya hibo dabcan waxaad keentay tusaale runtii aada loogu dayan karo qof aan xitaa diinta inan la haysan oo idinla dagaalsan baad hadiyad u geyseen intaa idinku hadiyad gadeen baad u geyseen wixii ka yimidna dabcan wanaag baa ka yimid shaksiga soomaaliga ah oo islaamka ah oo walaalkiis oo dariska ah ma isleedahay oo laakiin isyaro khilaafsan ma isleedahay qofkaas hadduu inta khilaafka ilaawo qofkaas walaalkiisa oo xanuunsan ama cilada ku timid ama xitaa asa waxba ku imaan inuu inta soo barideen oo maanta waxaan kuu keenay hadiyadan maxaa isleedahay way soo kordhin kartaa adoo qofkii gaalka ahaaba soo arkay subxaan allah runtii waxay soo kordhin karto horta waan wada sawiraan karnaa islaamkeenu wuxuu ka qabana waan garan karnaa aniga waxaan aaminsanahay wanaagga islaamkeenu uu nafarayo amba inaan aan samayno ahayd runtii waan ka gaabinay aad baan uga gaabinay iska daa qof soomaali ah oo muslin ah iska dhaaf dadkii ajaanibka ahaa oo diimaha kala haystay baa la rabaa inaan u wanaag falno oo samaha wanaagsan aan gaadhsiino yaa la rabaa laakiin qofka soomaaliga ah waxaan odhan lahaa oo dhibaato yar oo waxba ahayn ay idin dhex taallo waaba daaway noqonaysa hadiyadu adigooba hadal buu qofkii dhoolla cadayn doonaa markuu kugu arko hadiyadii adoo sida weli maad hadal kelmadu maad furin isla markaaba waxaad moodaa qalbigiisii in laga tirtiray hadiyadu cajaa'ib bay leedahay akhiyo cajaa'ib weyn bay leedahay runtii ilmahaaga maanta ugu dambeysay maanta aan joogno gabadhayda yar oo 13 jir ah baan hadiyadu keenay runtii ismaan lahayn waa wax weyn laakiin siday u faraxday baa markii dambe hadiyad yaro 4 pound oo pound aniga waa meesha inuu ka qabtaan meesha uu socday weey waxa dadka qaarkood inay isweydiiyaan de kharash ahaan oo kale maalin waxba inta tagtid oo suuqa gadid oo wax soo gadid geyn karta marka dadka waxa inuu qofku ma awoodo inuu dhaho marka see qofku awoodi kara iga raali noqo aan ka yara dhex galhibo ujeedada dhaneen barkinta u soo qaaday يعني طبعا وانا ودي كري wax kale oo qiimo marka laga hadlayo yani haday kharash tahay wax inkaas hadii laga hadlo wax ka qaalisan yani waa soo qaadi kara laakiin meesha waa maxay waxa ku jira xikmada waxa ku jirta ma aha qaaliga waxa ku jira inaad keeninta qofka aad u keentay u garashada qadarinta u garashada xusuusashada markaad wax soo galeysay waxaad soo galeysay inaad xusuusanaysay halkan uu kugu jiro qofka hal waa kaaga marka hadiyadii waxaan kuu waday aan gabadhayda u keenay runtii 4 pound baa layga qaaday wax qiimo ah maaha laakiin markaan u keenay way faraxday waxaan ku yiri hooyo waxaan kuugu keenay lianna sunno wanaagsan bay bilowday gabadha yar waxa weeyaan maalinta isniinta inay soonto ayay bilowday insha Allah marka soonkii baan rabaa inaan u tuso inaan ku farxay oo wax wanaagsan tahay oo ilaahayna ku sii farxayo marka waxa wax wanaagsan baad hooyo bilowday anoona ku amrin oo ikhtiyaarkaaga ku keentay hadiyadan ada iskale runtii way faraxday akhiyow marka waxaan oran lahaa muu 1 pound noqdo muu 2 pound noqdo muu 3 pound noqdo ha u aabayeelina waxan adiga iskale adaan kuu keenay hadaad qof tiraahdi waad aragtay dadka cadaanka qalinka aad wax ku qoraysa walaal isku keenan wax ka weyn ha filan qalinka bay kuu keenayaan box yaro wax ku jiraan bay kuu keenayaan marka hadiyadu waa muhiim meel weyn way buuxinaysaa waxaad moodaasa inay agtiina ay ku yartahay oon ka fikirayno wax weyn qofkii gee wax weyn gee intaan wax weynta ku hayno inuu waqtigiiba nagu dhamaado insha Allah markaan ku dadaalno gabagabadii barnaamijkan joognaa shacab jooga dabcan muhiimadda ay leedahay hadiyadu iyo ujeedada aad kala haydeen labadaba ka hadal gabagabadii barnaamijka maxaad ugu baaqaysaa ummadda Soomaaliyeed fursad ku daawanaysa ama ku helaysa fursad inay ku daawadaan maxaad
kula talinaysaa inay sameeyaan qaabkan idigu aada bilowday oo runtii ummadda badan soo jiitay qaab nooceead leedahay uga faa'iideysan karaan baa is leedahay? waad ku mahadsan tahay su-aasha. anigu waxaan isleeyahay runtii waxay ku xidhan tahay meelaha ay joogaan iyo fursadda ay haystaan iyo da-aha ay dadku kale yihiin. dadka waaweyn mas-uuliyiinta meelaha ay joogaan maalan madaxda oo kale haddii aan idhaahdo inay ka faa'iideystaan, waa taqaanaayo qofka mas-uulka ah culays baa saaran, cidhiidhi buu ku jiraa, xil buu qaaday, dhib baa saaran mugtahay. waana meel canaano socota ah. marka hadday madaxda dowladda hadday tahay, kuwa xildhibaanada hadday tahay, mayane maaragtay ministerada saas oo kale, meel xil oo cidhiidhiga ku jiraan. cidhiidhiga marka waxaa u fudaydin kara inay isku keenaan hadiyadahan, iyagaana ka codsanaya inay bilaabaan. waa fursad qaali ah inay ka faa'iideystaan, way isku soo dhaweynaysaa. buuqa iyo khayladanna way kala saaraysaa. tusaale yar aada u kooban, bruxel baan aaday, waxaan soo qaaday sawiradan dadka gacanta wax ku sawiro ad aragta, maaragtay falaawarada iyo cimilada natureka yani sawiraha. waxaan u soo qaaday head teacherka iskoolka aan ka shaqeeyo. ma malayn kartid 2 cisho buu kolba igu soo celinayay, maaragtay axmed aad baad u mahadsantahay, waxaan dhigtay buu yihi maaragtay sariirteeda garabkeeda. qofka markuu arkaba wuxuu mar kastoon arkaba waan ku xasuustaa, aad baad ugu mahadsantahay. yacna wuxuu kuu haynayaa qofkii ixtiraam dheeraad ah. annagu waxaan ka bilownay runtii meesha ugu horreysay ka bilownay labada qof iyagaa isugu dhow sooma. gurigiina macnaha ujeedadu gurigan ka bilownay, xaaskii inaad siiso, xaasku ay ninkayga siiso, ma fahamti, waalidku ilmihiisa u siiyo, ilmuhu waalidkooga ay u keenaan, ay ka farxiyaan. dadkani waxay leeyihiin maalmo gaara ayay samaysteen, laakiin inagu muslimiin baan nahay. maalin gaara wax gaara si gaar aan u caabudno ama isugu keenna ma jirto. waxaan ka hayn 2 cisho ee ciidda carafiya, ciidda maaragtay soon ee afurka. sidaas daraaddeed waxaan oran lahaa marka fursaddan in laga faa'iideysto, qola kastiba meesha ay joogto waxayna yaraynaysaa ay uga faa'iideysato dacaylka iyo ciriiriga iyo waxaan dadka ku baahay. waxaasay yaraynaysaa. waxaan kaloo ku darsan lahaa in la muujiyo farxadda iyo jacaylka la isku qabo. dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in maadaama oo la baranin, anagu barayaal baan nahay, tababarayaal baan nahay. saas daraaddeed waxaan rabnaa in aan barnoon tusno in la isku muujin karo jacayl. nabiga calayhi salaam qofka marka aad saxaabada waa kii baray ee lahaa markaad qof walaalkaaya aad jeclaato ee uu ku cajabiyo waxa uu samaynaya waxaad ku tirahdaa ilahay dartii baan kuu jecela. kii kalena waa duco, kii kalena wuu ducaynaya ilahay ku jeclaat saad ii jeclaat, axabaka allahu aladi axbabtanii fiih. laakiin haddii wixiiba la qariyo oo qofku xitaa hadduu qofka jecel yahay soo oranayn, hadduu qariyo balka war siduu ku ogaan ducada maya isagu siduu ka hel. waxaa kaloo cajiib ah ibnu qayim xadiiska ducada nabigu leeyahay isku duceeya qeybka waa mustajaabe, wuxuu kala soo baxay xikmad cajiiba. wuxuu yihi malag buu ilaahay u wakiishay ducadaas oo ku odhanaya marka aad u ducayso qofka walaalkaaya walaka miluhu. marka wuxuu yihi ma rabtaa waxaad jeceshay inaad heshid, u ducey buu yihi walaalaha. saas daraaddeed waxaan odhan lahaa nabigu calayhi salaam khadiiji iyo caashi iyo maaragtay haweenkiisii wuu tusay jacaylku u qabay, publiclyna ugu sheegay, gaar iyagoo u joogana ugu sheegay. waxaa waliba dadka la wadaagi lahaa haddii ay heli lahaayeen kitaabka la yidhaahdo taxriir almar'a fi casri risaala, waa kitaab cajiib ah oo 6 majalladood 3 baa lagu soo ururiyey. hadda wuxuu ka sheekeynayaa, wuxuu soo ururiyey bes keliya muslim iyo bukhaari saxiixinka axaadiistii ay keeneen buu soo ururinaya oo ku wajahan haweenka, dumarka, maxaan ku dhahday qoyska, guriga si loo nabigu siduu xaasaskiisa ula dhaqmayay siduu jacaylka ugu muujinayay. yani waxyaaba qaarkood haddaan kitaabka aan iminka akrin lahayn dad kale maaragtay jacaylka lama sheegi karo, way fajici lahaayeen mugta. marka iyagu waa akristaan, saasaan leeyahay. aad baa mahadsan tahay hiba gabagabadiisa. runtii anigu waxaan kusoo gabagabayn lahaa 2 mid. horta fahankan dayiqa ah ee ciriirka ah iyo dhaqankan aada moodid xarkaha inta laga dhigay dadka lagu hayo ha la iska dhaafo. dhaqankeenu wuu furan yahay, wixii wanaagsan dad qaata inaan noqonaa la rabaa.
wixii xunna ka taga waa sida islaamku uuna barayo waxa weeyaan hadalkii waxaan xasuustaa sheekheena cabdiraxmaan bashiir wuxuu yidhaahdaa qofka gaalka oo cadaanka ingiriiska wadankan u dhashay haddii uu muslimo dhaqan kuu qaadan lahaa ma dhaqan soomaaliyeed buu qaadan ma ku bakistaan buu qaadan ma kuu qaadan lahaa dhaqankiisa inta fiicanna uu haysan intii xunna uu ka tegayo intii islaamku u qaadan ma garatay marka dhaqanku wax la isku harowsado iyo wax maaragtay dadka xadhka looga dhiga maaha walaal ma garatay ta kale waxaan oran lahaa dhalinyartan aan usoo noqon lahaa dhalinyarta dhulkan ku nool dhaqan yurubiyankan iyo dhulkan aan ku dhalnay aan keennay bay haystaan soomaaliya ma joogaan meeshay doonaan baa ka yimaadaan geeska africa laakiin dhaqanka waxay haystaan dadkan maadaamay dhaqanka dadkan haystaan waxay rabaan inay arkaan dad soomaali ah oo xishood iyo ixtiraam iyo islaam ay ku dheehan tahay inay model u noqdaan inay wax tusaan haddii laakiin adadaygi iyo maaragtay waxaan ma samayn karno uun lagu hayo kama hadli kartid halkii aadayan dadkaas waxay ku dayan doonaan dadka kale ayay ku dayan doonaan adduunkuna maanta wuxuu ka dhacaa waa facebooka iyo twitterka maaha makhaayadaha iyo odayaashan dhulkan fadhiya iyo yaaban maaha waxa weya dadkaa dhalinyartaan anaku rabnaa inaan role model u noqono inaan wax tusno inuu maaragtay islaamkeenu waasac yahay inuu maaragtay wanaag oo dhan ay ku dhex jirto walaal ma garatay hamigaasaa nagu jira maadaama hamigaa nagu jiro waxa noo soo jawaabay ee commentka wanaagsan ka keensadayna waa dhalinyarta runtii maysan filanayn inay waxaasoo kale adeer iyo habaryar soomaaliya inay ku dhiiradaan ay waxaa sameeyaan maysan filanayn laakiin way farxad bay gelisay jawaab wanaagsan baanan kala kulanay ma garatay marka insha allah waan sii wadi doonaa sidii uu walaalku sheegay adiguna walaalaad sheegtay waxa weeyaan hadiyadu kuma joogsanayso labada qof ee keliya waa inay socotaa soomaalidu dhibaato badan baa soo dhex martay waa inay isku hadiyeeyaan waa inaan wax wanaagsan casri wanaagsan aan galno oon wax wanaagsan aan samayno oon hadiyadaha isku geyno oon faamiyadu isku hadiyeeyaan oo isku tagaan waxaan kaaga sheekeyn oon kusoo koobayaa qisad waa nagu dhacday qisadaas waxay ahayd annagoo group dad ah baa meel iskugu nimidnay marka sheekh casharna barayay baa wuxuu nagu yidhi waxaa idiin dhiibayaa shaqo aada qabataan guryihiina markaad aadaan shaqadii wuxuu nooga dhigay inuu magacdeeda waraaqa ku qoro uu sanduuq ku rido uu yidhaahdo qof walba magac ha la soo baxo marka anigii oo hibo cumar ah amba reerkayaga axmed jawhar iyo aniga waxaan la soo baxnay reerkaaga oo kale kaba soo qaad baa nagu soo aaday marka wuxuu sheekhiina amray inaan ziyaarano oon hadiyadu geyno maasha allah markaas idinkuna aadna soo ziyaarataan oo hadiyada noo keentaan oo saas isku booqano maxaa ka timiday inay dadkii aada isku jeclaadaan dadkii casharka wada qaatay way isjeclaadeen way iswaraysteen waxay aqaladiibay barteen ilmihiibay barteen reerihiibaa isbartay runtii wax wanaagsan baa ku jira ummad isku xiran isku qorsho ah fikrad aada u fiican baa kasoo dhex baxday maasha allah aad baad umahadsan tahay daawadayaal halkaasaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii aanu ku wareysanayna dabcan dhammaanahan isqaba oo beryihii u dambeysay runtii dadka soomaalida ay aada u hadalhayeen lamar ahaantaana soo bandhigay fikrad aada cajiib u ah oo dad badan oo soomaaliyeed soo jiidatay waxaan rajaynaynaa adiguna meel kastoo aad joogtidba inaad arintaas kale ku dhaqaaqdid qofka dariskaaga hadiyad u geysid ama xaaskaaga ha ahaato ama caruurtaada ha ahaato ama dariskaaga ha ahaato ama qofka kuugu dhow waxay soo siyaadinaysaa inay qofkaasi wanaagga idinka dhexeeya kor u qaado haddii xumaan idinka dhexaysana dabcan ay meesha ka saarto aniga iyo dhammaan inta igala qayb gashay waxaan idinku dhaafayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.